warbaahinta kala duwan ee ka hawlgasho gobolka Togdheer ayaa maanta tacsi tiiraayay u diray Allah u naxariis wariye Axmed Xasan Cawke oo kamid ah rukumadii ugu adkaa warbaahinta Soomaaliyeed meel kasta ay ka hawlgasho isla markaana ah wariye ku doyasho mudan iyagoo Ilaahay uga baryay inuu naxariistii janno ka waraabiyo samir iyo iimaan ka siiyo warbaahinta Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan guud ahaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan qarankan Soomaaliland raajicuun Ilaahay bayna leh Ilaahay baynu noqonaynaa waxaanu tacsi tiiraanya leh u dareynaa anagoo ah bahda saxaafadda gobolka Togdheer wariye Cawke oo ku geeriyooday jigjiga habeenkii xalay Ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu u naxariisto qabrigiisana u waasiyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un waxa maanta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ka baxay iyo guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed rukun kamid ah arkaanta warbaahinta Soomaalidu ay ku taagan tahay Cawke dadkii xiisaha iyo macnaha iyo sharafta u sameeyay ayuu ahaa warbaahinta in waxa rumaysnahay inaan la helaan kumanaanka kun ee inan ee wariyaasha ee maanta Soomaaliyeed ee afka Soomaaliga ku warama hadaan Cawke oo kale buddigin media Cawke Ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo maanta wuxuu dhintay tii xaq ahayd ee aynu wada ognahay qof waliba waqtiga ay kaga eegtahay baanu garanaynin dhamaanteen waxaanu yaqiinsanahay inaynu dhimanayno qof walibana uu dareensan yahay taa laakiin qof kasta waxa uu leeyahay waxa uu si horumarsaday ee uu aakhiro Ilaahay la hortagi doono bahda saxaafaddu runtii waxaanu haynaa shaqo aad u adag runtii oo dhibteeda iyo arrimaheeda leh oo u baahan taxadir fara badan u baahan runtii wariye Axmed Xasan Cawke waxa uu kamid ahaa Ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye wariyaasha ku suntana sida uu Cabdimaalik sheegay dhinaca wadaniyada sidoo kale akhlaaqiyadkiisii waxay nooga waramay rog cadaayadii saxaafadda Mijir Qaadi Maxamuud oo ahaa macallimiintiisii أحمد حسن عوكي وحن ليه إلهي هون حريستو جنده هو فراشو إلهي نبيجي ها كحريريو وحنو لنا واتير هذا جو كبحي ومدى أفك الصومالي جو هذا شة ما أنك يحوي صوص تيضو كل رانكرا ما إلا وكرة تاريخي لما إلا وانكها وكجست ومدى الصوماليين وأنا دحلو نوجت تجي أنا كل حسوسا دونا سوق أنا هنا وأنا كل حسوسا دونا وأنا كل حسوس دونا هدي لهيدنا waxaan tacsi tiiraanyo leh u dirayaa dhammaan eheladii qaraabadii ee guri kasta iyo goob kasta oo laga dhageysan jiray wariye Cawke ee geeridii naxdinta lahayd ee ku timi ee wariye Axmed Xasan Cawke oo ku geeriyooday magaalada Jigjiga ee xarunta dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya runtii ee saxafiyiinta afka Soomaaliga ku hadla iyo ummadda kale ee taqaanay Cawkeba waxaan ka tacsiideynaa geerida ku timi Allah u naxariista wariye Axmed Xasan Cawke ayaa ahaa wariye ku suntan muwaadinimada iyo qarannimada dalkiisa iyo dadkiisa isla markaana ah wariye ku dayasho mudan oo hormuud u ahaa guud ahaanba warbaahinta Soomaaliland ayna ka dhaxli doonaan haybada iyo hanaanka Ilaahay u siiyay dhanka tabinta warar iyo barnaamijyada tayada leh waa Qaadir Maxamed shabakada caalamiga oo News magaalada Burco